ولي شخصيا مركان كالين أنا وحان رميسنا دولة لها وحوق له وهل أمر ميل كصوبه وهل وضع قادة وقاب كاسة تاسان وارك أنا باهنا هذا بحق يدي لو قدرت بقول كيف بقولنا كتب محمد بن شواك اسمعين شواك بحق يكلف وأنا نيجي اللي يتش إن كان أنا إله الله اللي يتش لكن أنا لو قدر اللي يقوم بيسني عدي يقوم بيسني waxa meesha yaala waxa weeye war in dadkan loo sheego wadanku inuu Soomaaliya yahay astaanta uu leeyahay mid ay tahay shabaab inay noolaadaan waa heshiis lagu yahay maanta ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliya ay leedahay iyo dawlad goboleedyada iyo amisoomta joogta marka la isku daro rubuc ushur shabaab kuma gaaraan nin hadda damca siyaasadeed iyo kuraasdayda iyo inaan isu qaawiyay 2016 kana ugu horeysay qof aan wataana ma jirto anna ma socdo هذا wiilka yar ee saaka Kismaayo jooga aad weydiiso wad matalaad caalamka Soomaaliya aw waxa laga yaabaa kan dukaamadii ku dhaganaya Jubbaland meelahaas inuu yaqaan caalamka jamhuuriyadda inuu ka yahay mas'uuliyadda dayacadeeda waxa iskale dawladda federaalka la xisaabtan la'aanta ka hadal la'aanta isdabagal la'aantana mas'uuliyaddeeda iyada iskale mas'uulka annagu kaabayaal baan noqon karnaa baashaana waxa weeyaan waa la kala xishoonaya dawladahan indhaha lagu cadeyn karo international kana madaxaan u foorareenaa markay nala hadlayaan waxa laga hadlayna waxa uu hoogi hirtaayo ku dhamaan maxba shabaab in la dagaalamo go'aan ma aha runta markaan ku sheegay ma qabo shabaab in la dagaalamo go'aankaas cid wali ka yaalaba wali go'aan meeshaas yaalayma waxaan hadda ku wada jiraan 17 Ramadaan bay meel weerarayaan xageen galaayo seen isaga cilnaa meel hiblay weerarayaan oo maan weerarano ma la socdo intaas amisooma joogta intaas Soomaaliya joogta Mareykan baale waxaan idinku caawinaynaa kan Yurub baale intaas milyan ma la aado maxaa dhufayska lagu kalifay marka taadeer anu intaan ka ogahay waxa weeyaan shabaab meeshu jilcsaneed bi taagay waa very weak si walba looga adkaan karaa laakiin caalamku heshiis ma ku yahay in la dagaalamo anigu hadda qole heblan oran ma haday dayacaad mas'uuliyad ka timaadana حسن شيخ رئيس الوزراء إلهي كركوضها كوير يا دتك waxay isweydiinayaan Sheekh Axmed Maxamed Islaam hiigsigiisa ugu dambeeya xaguu yahay Jubbaland kadib hada Jubbaland bad madaxweyne ka tahay ma xagga jacaysa kadib inaad ugu gudubto horeyna fikirkayga waan u sheegay asal ahaan anuu ma yahay shakhsi inuu siyaasadda ku sii jiro danaynaya markaan aan shakhsiyan iska hadlay tanaan joogana inaan taariikh kaga tagaan rabaa xamar uma socdo madaxweyne Soomaaliyeed uma socdo waxaan rabaa anoo muwaadin Soomaaliyeed fikirkayga xorta inaan sheegi karayo oo ka hadli karo waxa aan qabo aan xor u sheegi karayo hadii damac uu igu jiro maanta oo 2016 iyo ta kale iyo damac kale waxa laga yaabaa 90% damac aan qabo inuu ii diidayo fikirkaan qabo inaan xor ka noqdo taasa waxa igu soo waydaa marka inaan barnaamijka siyaasadda aan doonaynin inaan waxaan ganacsiga inaan ku noqdo baribac mushtarahaado mar raba inaan siyaasad sii quuto inaan ku sii jiro mar raba inaan waqtiga siyaasad ku sii laakiin waxaan rabaa intaan joogan inaan ka tago magac iyo at least wax taariikhda geli karay talada dambe ku yeelan kara hadii Ilaahay intaan nafta igu soo inaan noqoto talo aan dadka kula talin kara waxaan isla warko leeyahay dhageysan karaya nin hadda damca siyaasadeed iyo kuraasdayda iyo inaan isu qaawiyay 2016 kana ugu horeysay qof aan wataana ma jirto anna ma socdo laakiin waxa ay muuqanaysa waxaan danta Soomaaliyeed xalka u arkay inaan war halkaas asaasi halkaas inaan xor ka ahaadaan doonaya shabaab inay noolaadaan waa heshiis lagu yahay maanta ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliya ay leedahay iyo dawlad goboleedyada iyo amisoomta joogta marka la isku daro rubuc ushur shabaab kuma gaaraan 110 loo qeybiyo 10 hal meel kuma dhanna shabaabku inay noolaadaan markaas lisaan xaalku iska noqonaya Soomaaliya sidoo waa la rabaa inay iska jiraan shabaab in la dagaalamo heshiis ma lagu yahay say in loola dagaalamo heshiis loogu yahay maanta waxaad arkaysaa buulo barda dagaal ka dhacay amisom halkaas lagu qaaday Soomaalida wada socotay 3 bilood kadib waxaad maqlaysaa waxa baydhabo laga qaaday 5 bilood kadib maxaa diidaya 22 kun oo amisom 30 kun oo Soomaaliya 50 kun oo dawlad intaasoo ciidan ah jirta in hal maalin dagaal la xadido oo meel goob walba laga qaado
oo lanagu caawiyo oo sidaa shabaab loola dagaalamo oo geedka hoosta loogu taga maxaa diidaya inta barnaamijku uu yahay intii meel tuulo laga qaado haddana sanad kadib baa haddana meesheeda la tegaya ciidan amisom aa meel degayo hal Facebook 3 sano ku jira oo sahan iyo waxba ku kor dhamaysteen iyaga khiyaarkii iskale weerarkii iyaga leh saacada iyaga leh waa danganaysa qaacidada askariga difaac la sameeyo waxa ugu fiican hujuum in wax la weeraro yaa ugu fiican difaac aad galayso iyaga wax weeraraya anaga difaac ku jira intaas oo ciidan sheeganayna intaas oo dawladba milyanis baa laga hadlayaa maalinba ku baxay milyanisku ma tufaax xamar lagu gadaa ma khudaarta amisom iyo raashinka war ma ahsan dagaalka shabaab markaan dhab ka hadlayno dagaalka shabaab in lala dagaalamo diyaar ma loo yahay su-aashaadi weydiinaysa war ma jirtaa shabaab in lala dagaalamo diyaar ma loo yahay mise looma maxaase ka dhiman goormaasa lala dagaalamay yaasa la dagaalamay annagii soomaalida iskuma tashanayno oo maanta oo dhan waxa weeye ciidankii haddaad weydiiso SNA maanta oo dhan marka howlgal la yidhahdana waxaa la waayey in yar baa la harki markii saadiya loojista laga hadlayna kumanaan baa la heli amisom dhufaysay ku jirtaa 3 sano xaggan sanaa la samaynaya yaa horta la dagaalamaya shabaab fursadda ugu liidatay haystaan hogaamintoodii baa burbursan hogaamin ma laha waa waxay u taagan yihiin ducfigooda meesha ugu dambeysay waxaan is leeyahay si aad iyo aad u fudud baa kulli barnaamijkooda dhan lagaga takhalusi karaa